Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Kusoo dhawaada cashir kale oo ku saabsan sidaad shaqadaada uga hadli lahayd. Cashirkan waa cashir aad iyo aad u muhiim ah. Fadlan haddii rabtid inaad ka faa'iidaysatid, sii daawo cashirka fasiraadiisa. How to talk about your job. Sidaad uga hadli lahayd shaqadaada. How to talk about your job. Sidaad uga hadli lahayd shaqadaada. He resigned as manager after 20 years. Wuxuu iska casilay shaqadii maareynimo 20 sano kadib. After waa kadib, 20 waa 20, years waa sanado. Manager waa maareeye. He resigned wuxuu iska casilay as manager after 20 years. Wuxuu iska casilay shaqadii maareynimo 20 sano kadib. 9 workers at the factory have been laid off. 9 shaqaale ee shirkadda ayaa shaqadii laga joojiyay. Because maxaa yeelay there is no job. Because maxaa yeelay there is no ma jirto job shaqo. 9 workers 9 shaqaale at the factory ee shirkadda have been laid off ayaa shaqadii laga joojiyay. Because maxaa yeelay there is no job shaqo ma jirto. I am planning waxaan qorsheynayaa to retire shaqada inaan ka fadhiisto in June next year. Bisha June sanadka soo socda. I am planning waxaan qorsheynayaa to retire inaan shaqada ka fadhiisto in June next year. Bisha June sanadka soo socda. I get paid every month. Mushaarka waxaa la siiyaa bil kasto. I get paid every month. Waxaa mushaarka la siiyaa bil kasto. She doesn't earn a lot. Wax badan iyada ma kasbato. She doesn't earn a lot. Iyada wax badan ma kasbato. The company shirkadda offers good salary. Waxay bixisaa mushaar wanaagsan. The company shirkadda offers waxay bixisaa good salary. Mushaar wanaagsan. He has good job. Wuxuu haystaa shaqo wanaagsan. He has wuxuu haystaa good job. Shaqo wanaagsan. Good waa wanaagsan. Jobna waa shaqada. Aan u gudubno qaybta kale cashirka. I was promoted to director. Waxaa lee dalacsiiyey agaasime. I was promoted to director. Waxaa lee dalacsiiyey agaasime. She made waxay samaysay a mistake qalad. That is why taasi waa sababta she was demoted oo hoos loogu dhigay oo jagadeedii laga hoos mariyay. Promoted waa dalacsiin. Demotedna waa markii hoos jagadaadi laga dhigo. Wasiir ahayd wasiir ku-xigeen ayaa laga dhigay. Saasoo kale tusaale aan soo qaata hadeer. Wasiir adigoo ahaa oo kor jiray. Demoted hoos ayaa lagu geeyay. Wasiir ku-xigeen ayaa laga dhigay. Marka she made waxay samaysay a mistake qalad. That is why taasi waa sababta she was demoted oo hoos loogu dhigay. Jagadeeda hoos loogu hoos mariyay. He was fired. He was fired. Waa asiga shaqadii ayaa laga eriyay. He was fired. Asiga shaqadii ayaa laga eriyay. What is your job? Waa maxay shaqadaada? What is your job? Waa maxay shaqadaada? What do you do? Maxaa qabataa? What do you do? Maxaa samaysaa? Whom do you work for? Yaad u shaqaysaa. Whom do you work for? Yaa u shaqaysaa. What sort of work do you do? Shaqo noocee ah ayaa qabataa. What sort of work do you do? Shaqo noocee ah ayaa qabataa. What kind of work do you do? Shaqo noocee ah ayaa qabataa. Waa isku macne. Kind iyo sort waa isku macne. Marka aan u gudubno qaybta kale ee cashirka. I am a doctor.
at Martini Hospital. Waxaan dhakhtar ka ahay isbitaalka Martini. I am a doctor at Martini Hospital. Waxaan dhakhtar ka ahay isbitaalka Martini. I am an electrician at Beko Company. Waxaan ahay qof koronto yaqaan ah shirkadda Beko Company. I am an electrician at Beko Company. Waxaan ahay qof oo koronto yaqaan ah shirkadda Beko Company la dhaho. Shirkadda Beko la dhaho. I work for, waxaan u shaqeeyaa for the Ministry of Education. Wasaaradda waxbarashada ayaa u shaqeeya. I work for the Ministry of Education. Waxaan u shaqeeyaa wasaaradda waxbarashada. I am looking for, waxaan raadinayaa a job. Shaqo ayaan raadinayaa. I am looking for a job. Waxaan raadinayaa shaqo. I am jobless. Waxaan ahay shaqo laawe. Shaqo ma hayste. I am jobless. Waxaan ahay shaqo laawe. Shaqo ma lehi. Ma shaqeeyey. I am jobless. Ma shaqeeyey. Shaqo la'aan ayaan ahay. I do voluntary work. Waxaan sameeyaa shaqo iskaa wax u qabsaa. I do voluntary work. Waxaan sameeyaa shaqo iskaa wax u qabsaa. I am self-employed. Waxa waaye iskay ayaan u shaqaystaa. I am self-employed. Waxaan iskay ayaan u shaqaystaa. I am on break. Shaqada nasashada ayaan ku jiraa. Shaqada waa ka nasanoyaa. Nasashada shaqada ayaan ku jiraa. Marka aan u gudubno qaybta kale ee ugu dambeysa. I work a full-time job. Waxaan shaqeeyaa shaqo full ah oo 8 saac ah ama wixii ka badan. I work a full-time job. Waxaan shaqeeyaa shaqo full-time ah. I work a part-time job. Waxaan qabtaa shaqo oo half ah. Oo dhowr saac intaan soo shaqeeya ayaan joojiyaa. Ayaan soo laabtaa. Dhowr saac ayaan soo shaqeynaya oo 8 saac ka yar ayaa lahaa part-time ayaa lahaa. Part-time waxa waaye shaqo oo part-time ah oo gelin oo maxay ahayd oo kooban aad gelaysid oo yar. Saacado yar aad soo shaqeynaysid. I work a part-time job. Waxaan soo qabtaa shaqo. Waxaan shaqeeyaa shaqo oo full ahayn ayaan shaqeeyaa. Oo yar oo saacado kooban ah. Full ma aha. Full time waa shaqo oo full ah. Part time waa shaqo aan full ahayn oo saacado yar aad soo qabatid. I have no job satisfaction. Shaqada kuma qanacsani. I have no job satisfaction. Kuma qanacsani shaqada. I am satisfied with my job. Shaqadeeda waa ku qanacsanahay. I am satisfied with my job. Shaqadeeda waa ku qanacsanahay. I have just finished an 8-hour shift. Waxaan hadda soo dhameeyey 8 saac oo gelin shaqo ah. Shifti waxa waaye waxa la night shift habeenkii iyo day shift. Gelin aad gelaysid. Shiftiga waxa waaye marka aad shaqada gelaysid habeen miyaa mise maalin. Marka 8 saac oo shifti ah ayaan soo dhameeyey hadda. I have just finished an 8-hour shift. Hadda waxaan soo dhameeyey 8 saac oo shaqo oo gelinka shaqada oo gelinka ah. Gelinka aan gelay shaqada qof kastoo shifti kala leeyihiin. Kuwa subaxdii galaan shiftiga waxaa laga wadaa
kuwa subaxdii galaan, kuwana habeenkii, kuwana galabtii ayay galaan. marka saddexdaas shift ayaa jirto. I do about 10 hours. waxaan sameeyaa shaqo 10 saac overtime a month. waxaan sameeyaa ku dhawaad shaqo 10 saac oo extra ah ayaan sameeyaa overtime bishiiba, a month bishiiba. I do waxaan sameeyaa about ku dhawaad 10 hours 10 saac overtime shaqo dheeraad ah a month bil kasto, a month bishiiba, a month bishiiba. I do waxaan sameeyaa about ku dhawaad 10 hours 10 saac overtime oo shaqo extra aan shaqaynayo a month bishiiba. Send me isoo dir your CV. CV-gaaga. CV waxaa la dhahaa warqad ay ku qoran tahay magacaaga, shaqooyinka hore aad soo qabatay, meesha laga helayo, taleefankaaga, shaqada khibradda aa u leedahay ayaa la dhahaa CV. With your job application. codsiga shaqadaada isoo dir. foomka codsiga shaqadaada send me isoo dir your CV. CV-gaaga iyo oo la socda with your job application. codsiga aad ku codsanaysid, warqadda aad ku codsanaysid shaqada. I work waxaan shaqeeyaa a full time job. shaqo buuxda ayaan shaqeeyaa oo full ah. I work a part time job. waxaan shaqeeyaa shaqo aan full ahayn. I have no job satisfaction. shaqada kuma qanacsani. I am satisfied with my job. shaqadeeda waa ku qanacsanahay. I have just finished. hadda ayaan soo dhameeyey an 8 hours shift. 8 saac oo shaqadeeda ah. shifti oo 8 saac ka kooban. subaxdii shiftiga waxaa 3 shifti ayaa jirto markasto. subaxdii, galabtii iyo habeenkii. marka sidaas ula soco. I do waxaan sameeyaa about ku dhawaad 10 hours 10 saac overtime oo extra time ah oo shaqo dheeraad ah a month bishiiba. Send me isoo dir your CV. CV-gaaga with your job application. warqadda aad ku codsanaysid, applicationka aad ku codsanaysid, foomka aad ku codsanaysid shaqada oo la socdo. marka cashirkii oo shaqada ku saabsanaa intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa. inta casharada kale ee soo socda aan ku kulmi doono waxaan kaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala